السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارتنا كحرا جانالكينا حوغها ميديا كسو دوادا برنامج آد مهم oo nooga hadli doono gobolada Soomaaliya. In aad barataa dhulkaaga ogow waa difaaca sharaftaada. Dalka Soomaaliya wuxuu ka kooban yahay gobollo iyo degmooyin. Dalka Soomaaliya wuxuu ka kooban yahay 18 gobol iyo degmooyin hoos imaada goboladaas. Inkastoo lagu qiyaasa dalka Soomaaliya baaxadiisa 630,000 oo kiiloomitir isku weera taqriiban, haddana baaxadda intaas leeg waxaa hoos imaada gobollo iyo degmooyin. Haddaba maxaad ka taqaanaa degmooyinkaas? Horeysa ma u maqashay ma soo aragtay gobolada Soomaaliya? Haddii aad ku cusub tahay channelkeena Xogaha Media, fadlan subscribe saar. kusoo dhawaada barnaamijkeena. dalka Soomaaliya waxa uu ka kooban yahay 18 gobol wixii ka dambeeyay dawladii dhexe ee Maxamed Siyaad Barre, waana inta haatan la aqoonsan yahay ee wali ka jirta dalka Soomaaliya. waana goboladii ay guumeysteen ama ay gacanta ku hayn jireen Ingiriis iyo Talyaani. ogama hadli doona barnaamijkeena kumana sii dheeraan doona wax kamid ah goboladii Soomaaliya ee guumeysigu kala wareegay, sida gobolka loo yaqaan Northeastern ama NFD iyo gobolka ay dawladda Ethiopia gacanta ku haysa ee Soomaali Galbeed ama Ogaadeniya. dalka Soomaaliya waxa magaalo madax u ah magaalada Muqdisho, waxayna ka tirsan tahay gobolka Banaadir. waxaan ka bilaabaynaa gobolka Banaadir. gobolka Banaadir waa magaalo madaxda dalka Soomaaliya. gobolka ay ku taale waxa uu ka kooban yahay ilaa 16 degmo. waxaan ka bilaabaynaa degmada Cabdicasiis, Boondheere, Dayniile, Dharkinle, Xamar Jajab, Xamar Weyne, Hodan, Hulwadaag, Huriwaa, Kaaraan, Shibis, Shangaani, Waaberi, Wadajir, Wardhiigle iyo Yaaqshid. gobolka Banaadir intaas ayuu ka kooban yahay. gobolka Hiiraan aanu imaano. Beledweyne waa magaalo madaxda gobolka. Buulo Berde, Maqoori, Halgan, Gud Abaqle, Jaralaxsi, Matabaan iyo Maxaas ayuu ka kooban yahay gobolka Hiiraan. Shabeellada dhexe waxay ka kooban tahay Cadale, Aadan Yabaal, Balcad, Jowhar, Mahadaay, Rinigood iyo Warshiiq. magaalo madaxdeeduna waa degmada Jowhar. shabeellada hoose waxay ka kooban tahay iyadana Afgooye, Baraawe, Kurtunwaari, Marko, Qoryooley, Sablaale iyo Wallaweyn. magaalo madaxdeeduna waa degmada Marko. bari ama gobolka Bari wuxuu ka kooban yahay degmada Waaciye, Bayla, Boosaaso, Caluula, Isku Shuban, Qandala, Ufeyn iyo Qardho iyo Rako. magaalo madaxdeeda gobolkan ama gobolka Barina waa degmada Boosaaso. Mudug ama gobolka Mudug isna wuxuu ka kooban yahay Gaalkacyo, Goldogob, Xarar Dheere, Hobyo iyo Jarriban. magaalo madaxda gobolkana waa Gaalkacyo. Nugaal ama gobolka Nugaal wuxuu ka kooban yahay Garoowe, Ayl, Burtinle, Dangorey. Awdal ama gobolka Awdal wuxuu ka kooban yahay Baki ama degmada Baki, Boorama, Lughaye iyo Saylac. gobolka Sanaag wuxuu ka kooban yahay Badhan, Dhahar iyo Cerigaabo. Sool ama gobolka Sool isna wuxuu ka kooban yahay Caynabo, Laascaanood, Taleex iyo Hudun. Laascaanood waa magaalo madaxda gobolka. Togdheer ama gobolka Togdheer waa Burco, Buuhoodle, Oodweyn iyo Sheekh. waqooyi galbeed waxay ka kooban tahay Berbera, Gabiley iyo Hargeysa. magaalo madaxdana waa Hargeysa. Bakool waxay ka kooban tahay Ceel Berde, Xudur, Tieglow, Waajid iyo Yeed. Baay waa degmada Baydhabo, Buur-Xakabo, Diinsoor iyo Qansax Dheere. gobolka Gado waa Baardheere, Beled Xaawo, Ceelwaaq, Doolow, Garbaarey, Luuq iyo Buurdhuubo. Jubbada Dhexe waxay ka kooban tahay Bu'aale, Jilib, Saakow iyo Salagle. Jubbada Hoose waxay ka kooban tahay Afmadow, Badhaadhe, Jamaame iyo Kismaayo. magaalo madaxdana waa Kismaayo. xilligii guumeystay Soomaaliya ee uu Talyaaniga gacanta ku hayay dhulka Soomaaliyeed waxa uu qaybiyay 1935 ilaa 10 gobol. waxa ayna kala ahaayeen Alta Jubbo ama Jubbada Dhexe. kabitaalna waxa uu ahayd ama magaalo madax markaa iyada u ahayd magaalada Baydhabo. Jubbada Hoose waxa magaalo madax u ahayd Marko. Majeerteeniya dhulkii loo yaqaanay Dante ayaa magaalo madax u ahaan jirtay. Majeerteeniya macnaha waxa laga wadaa saldanadii Majeerteen dhulkii ay haysteen waxay ahayd deegaan u xisaabsanaa markaa iyada guumeystay Talyaaniga. Muqdisho waxa magaalo madax u ahaa isla magaalada Muqdisho. Mudug xilligaas waxa magaalo madax u ahaa magaalada Gaalkacyo. Ogaadeniya waxa magaalo madax u ahayd waqtiga iyada ah degmada Wardheer. Gesteroid River waxay u yaqaaneen iyaga markaa iyada oo ah webigan Jubba ee ka imaado dhulka Oromada. waxa magaalo madax u ahayd waqtiga iyada ah Qalaafo oo hadda ka tirsan deegaanka ay maamusho Ethiopia. Jubbada Hoose magaalo madax waxa u ahayd Kismaayo. Nugaal, Ayl ayaa markaa iyada magaalo madax u ahayd. dagaalkii labaad ee adduunka markii uu dhacay waxa ay ka dhigeen Soomaaliya waa Talyaaniga waxay ka dhigeen 6 gobol
oo kala ahaa jubbada hoose, jubbada dhexe, banaadir, hiiraan, majeerteeniya iyo mudug. kadib British kii haystay dhanka iyo Somaliland ama Somalian British dhulkii loo yaqaanay ayaa waxay ku kordhiyeen 2 gobol oo ahaa Burco iyo Hargeysa. dawladdii Soomaaliya markii ay dhalatay 1960kii ayna xorriyadda qaadatay waxa ay ka dhigtay dawladdii Soomaaliya dhulka Soomaaliya 8 gobol oo ay ku mideysay hal dawlad. waxayna kala ahaayeen gobolka Banaadir masaaxada dhulka uu ku fadhiyo waxay ahayd 45,004 kiiloomitir oo isku weer ah. magaalada madaxana waxa uu ahayd magaalada Muqdisho. Burco ama gobolka Burco waxa uu ahaa masaaxada dhulka uu ku fadhiyo 128,000. magaalada madaxana waxa uu ahaa degmada Burco. Hargeysa ama gobolka Hargeysa badka uu ku fadhiyo waxa uu ahaa 48,000 oo kiiloomitir oo isku weer ah. magaalada madaxana waxa uu ahaa Hargeysa. Hiiraan waxay ahayd 25,647 kiiloomitir oo isku weer ah. magaalada madaxna waxa uu ahayd degmada Beledweyne. Jubbada hoose badkeedu waxa uu ahaa 49,917 kiiloomitir oo isku weer ah. waxaana magaalada madax u ahayd degmada Jamaame. Boosaaso 9,744 kiiloomitir oo isku weer ah. waxaana magaalada madax u ahayd degmada Boosaaso. ogow Boosaaso magaceedu hore ma ahayn Boosaaso, waxaa loo yaqaani jiray Bandar Qaasim. Mudug 118,737 kiiloomitir oo isku weer ayay ahayd badkii ay ku fadhiday. waxaana magaalada madax u ahaa degmada Gaalkacyo. Jubbada dhexe waxay ka koobnayd 131,492 kiiloomitir. waxaana magaalada madax u ahayd Baydhabo. markii ay dhalatay dawladdii kacaanka ee Maxamed Siyaad Barre ee 1984 16 gobol ayaa laga dhigay dalka Soomaaliya. waxaa dib looga daray ama lagu siyaadiyay oo 18 gobol looga dhigay Awdal oo laga soo jaray gobolka Waqooyi Galbeed iyo Sool oo laga soo jaray Nugaal. waxa ayna noqotay Soomaaliya 18 gobol oo wada madax bannaan. haddaba aan isla fiirino gobolada dalka Soomaaliya iyo magaalo madaxdooda. gobolka koowaad ee ka bilaabeen waa Banaadir. magaalo madaxiisu waa Muqdisho. Bakool waxa uu magaalo madax Cudur. Bari waa Boosaaso. Bay waa Baydhabo. Galmudug waa Dhuusamareeb. Gedo waa Garbaharey. Hiiraan waa Beledweyne. Jubbada hoose waa Kismaayo. Jubbada dhexe waa Bu'aale. Shabeellaha hoose waa Marko. Shabeellaha dhexe waa Jowhar. Mudug waa Gaalkacyo. Nugaal waa Garoowe. Sanaag waa Cerigabo. Sool waa Laascaanood. Togdheer waa Burco. Waqooyi Galbeedna waa Hargeyso. intaas ayuu ku eegayaa barnaamijkeena. fadlan haddii aad ka faa'iiday wax u sii gudbi asxaabtaada si ay uga faa'iidaan, naguna caawi subscribe iyo like. haddii aan wax qaladnay ama aan qaladnay dhawa qaar ka mid ah degmooyinka dalka waxaan ku turjinay ama aan ka keennay waxay ku qornaayeen Talyaani, saas ayaan Soomaali uga dhignay. fadlan haddii aan wax qaladnay commentiga noogu soo qor oo naga sax. mahadsanid.